بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، walaalayaal waxaynu ku soo koobi doonaa halkan si guud aynu u dul mari doonaa arkaanul islaamka mid kamida oo ah alxaju ilaa bayt illaahi alxaraam, xajka iyo muuqaalka uu leeyahay, inagoo soo koobayna kana duulayna siduu nebi maxamed u xajay calayhi salaatu wasalaam, kuna xisaabtamayna qofkaynu la hadlaynaa inuu yahay qof bilow ah oo runtii aan cilmiga xajka aada u aqoonin. sidaa daraaddeed baynu iska dhaafi doonaa daliilo badan oo aynu soo qaadan lahayn, laakiin wixii daliilku uu sheegun baynu macnihiisa ku soo urursan doonaa. marka u horeysa, xajku waxa uu ka bilaabmayaa qofku kolka uu soo diyaar garoobaye hore inuu si fiican usoo diyaar garoobo, hantida uu soo qaadanaya ay xalaal noqoto, sida uu reerkiisa iyo ehelkiisa uga soo ambabaxaya ay si wanaagsan noqoto, dadka uu soo raacaya ay yihiin dad saalixiina oo wanaagsan oo cibaadada iyo cilmiga labadaba ka caawiya, inuu soo diyaar garoobo oo cajaladaha dhegaysigooda iyo kutubaha soo akhriskooda iyo intaba uu kusoo dadaalo. oo sidaynu ogsoonnahay qof kasta oo shaqo qabanaya wuxuu isku dayaa shaqadaa inuu macluumaad iyo aqoon ka haysto. intaa marka laga soo gudbo qofku marka uu soo socdo, cid waliba miiqaad iyo meel ay ka soo xidhato ayay leedahay. siduu ilaahay ba yidhi subxaanahu watacaala, alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj. macnaha waa miiqaad la xidhiidha xagga waktigiisi xajka waa in lasoo xidhaa, waa in laga soo xidhaa meelihii uu nebigu u cayimay calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed markaad soo fuulayso diyaarad eed hawada kusoo jirto, qolada diyaaradda waxay kuu sheegi doonaan miiqaadka iyo meesha laga soo xidhanayo. marka adigoo dharkaagii soo xidhay, haddii raggii ay yihiin dharkii caddaa soo xidho, soo maydho, cadarkii soo marsado, diyaar ah, markay diyaaraddu marayso ama ku dhowdahay halkii laga xidhanayay ayaa uu qofku xidhanayaa. siduu u xidhanayaa waxa weeye, haddii uu xaj yahay dee waa xajun baynu ka hadlaynaa, cumradii gaar baa looga hadli. waa inuu idhaahdo labayk allaahuma xaja. hadday cumro tahayna labayk allaahuma cumra, oo macnaheedu yahay hadduu af carabi ku fahmi waayo qofku wuxuu leeyahy ilaahay ow cumraan xidhay, cumro ayaan xidhay, ama wuxuu leeyahy ilaahay ow xaj baan xidhay. intaas way ku filan tahay ereygaa inuu u turjuman karo af soomaali. haddii uu qof kale ka xajiyayo, ama waalidkiisa ama qof loo soo wakiishay, wuxuu leeyahy ilaahay ow hebel baan ka xajiyayaa, ama hebel ayaan ka cumraysanaya, ama heblaayo. intaasunbay ku kala duwan yihiin qofka naftiisa ka xajiyaya iyo qofka cid kale ka xajiyaya. marka uu qofku halkaa marayo, waa inuu heegan ku jiraa oo u diyaar garoobaa inuu iska ilaaliyo wax kasta oo laga xaaraantinimeeyey, oo kollay daris gaara aynu ku qaadan doono shayga loo yaqaano maxduuraatul ixraam, ama qofka xaajigii cumradana xidhan wixii loo diiday. wuxuu markaa isagoo heegankaa ku jiro, isdhowrayo, isilaalinaya, wuxuu ka soo degayaa garoonkii uu markaa imanayo, u badan garoonka jidda iyo madiina. wuxuu kusoo beegan yaho markaa uu soo gaari doonaa qofkii baytullaahi alxaraam, oo halkii qofkaasi kol hadduu xaaji yahay, haddaanu madiine tegayna laakiin uu kusoo horeynayo xaramka, oo wuxuu kusoo horeynayaa markaa inuu yimaado kacbada. dawaaf buu ku bilaabaya. dawaafkaasi mar wuxuu noqon karaa dawaaf sunno ah, marna wuxuu noqon karaa kolkuu dee cumro xidhan yahay qofku ama xaj xidhan yahay, dawaafkii waajibka ahaa buu noqonayaa, arkaanta cumradii xajka ka mid ahaa. habka uu qofku u dawaafayo waxa weye, kolkuu soo galo kacbada waa inuu eegtaa light greena ama iftiin greena baa baxaya oo ku toosan oo ku beegan dhagaxan loo yaqaano alxajar alaswad ayuu ku beegan yahay. markaad kacbada ereyadan la dawaafayo saa usoo eegto, waxaad arki doontaa khadkaa cagaaran. khadkaa cagaaran buu si quman qofku isu taagaya, hadduu dusha yahay iyo hadduu dabaqa dhexe iyo hadduu dabaqa u hooseeya yahayba. markaasuu sidaa u qaabilaya dhagaxu sidaa u qaabilaya.
بسم الله الله أكبر بولي وقعنت مديك بتاعي كل كاسود كنايا سجوا السلا أو قابلية وجهدي سواسا وجودة شيء برتها سوق بلعبة يا طواف وبداية الطواف أما هالك الطواف كلا بلعبة وهالك نجحاس وحقوق وريجيا مركا حاجة مديكت بدح لو ما نقنايا استعدت كبا وريجيا وريجيا تضبط شير بمركا قفوا كعبة كسو وريجيا تضبط شير أي كسو وريجيا haddii fursad aad haysato oo dhulku iska banaan yahay saddexda hore waa la yara gucleeyaa waliba waa ragga dumarka maaha iyadoo qofkuna uu jeeni qaaran yahay oo go'a uu jeeni qaarka xagga ka marinayo hoose tawaafka ugu horeeyo weeye waliba tawaafida dambe maaha sidoo nabigu sameeyay calayhi salaatu wasalaam hadday meeshu cidhiidhi tahayna dadka waxba dhibi mayside aad yar iyo si degan u baad isaga socon doontaa waxa aad u muhiima qofku inuu hubsado todobada jeer inay u buuxaan ama tusbaxa ku tiriye ama faraha ku tiriye ama qalin ha ku qorto oo aanay ka khaldamin haddii uu shakiyana todobada mar walba waa inuu buuxiyo oo uu shakiga ka saaro qofku marka uu dawaafayo wuxuu iska akhriyayaa ducooyinka wuxuu iska akhriyayaa quraanka kariimka wuxuu iska akhriyayaa adkaar wixii uu kari karo oo u badan tahay rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina cadaab an-nar waxa shardiya وشروطات ضوافك كميدا قفكو إنه ويسا قبو إن عوردي سواء أسطورانتي رقية دمر بيت كستبها أهادو تضبط بوا إنه لما يسترى لقى حواء إنه كبل عبا وإنه كالقوينين ويسكو حجرية ظروف هذا قوتي ما دموياني مركا سداء لما يو تضبطي وريق ضوافك أها وحسنا إنه تكذا لبدي ركعدو لو يقاني ركعتي الطواف لو يقاني wuxuu ku tukanayaa maqaamu Ibraahim meel la yiraahdo quraarada hoosa kacbada u ag taagan oo dhinaca bari ka taagan xageeda dambe haday cidhiidhi noqotona uu iska sii durkayaayo meelaha ka sii shisheeyso labada ragcadood ku soo tukanaya markuu sii dhaqaaqayna dhagaxii buu sidaa u soo ishaarayaayo markaasuu gacantii dhunkanaya bismillaah allahu akbar intuu raabo dib u dhunkanaya gacantii waxa halka ku dhamaaday arkaantii xajka ama umrada mid kamida tiirkii tawaafka dhamaaday wuxuu dhaqaaqayaa safa iyo barwa oo saci baa la yiraahdaa saci kastaana oo waajibina wuxuu ku xigaa tawaaf buu ku xigaayo ka dambeynaya markuu ku sii dhow yahay wuxuu akhriyayaa aayadii suuratul baqara ku sugnayd ilaahay uu yiri inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa qofkii yaqaana qofkii aqoonina dib ma saarna oo amalku waxba kama noqonaya akhrinteedu waa sunna kolku safa iyo marwa wuxuu ka bilaabayaa safa inuu safa ka bilaababa waajiba sida ilaahayba uga bilaabay nabiguna uga bilaabay sallallahu alayhi wasallam markuu safa ku dhow yahay ama agteeda taagan yahay kacbadii buu soo qaabilaya intaanu bilaabin saciga la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir dhikrigaas oo akhriyaya صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأنا دعيسنا يا سيدو النبي وبقول دعيستي عليه الصلاة والسلام قفكو إسقى كعبة كسو تشيله وصفتها جن صف مركز بلابيس كبلابيس صعيقة كربضو يرفوله يسايو حاجة أوه سيسها يستاجنا وين تشيرته مرمر كيريرة جو أنله يدتكو بقول كتشيرين يهالكاسات كبلابيسه وحضور دقائق يس حاجة إيه مروة يدتكو بقول أوصي سعريه socod baad ku jiraysaa laakiin markaad gaadho khadka greenka ah ama cagaaran laba khado cagaaran baa jira inta u dhaxaysa rag way gucleynayaan dumarka waxba sunna uma aha iyo qofkii waayeelaha dib ay ku tahay ayar buu iska soconaya markay gucladaas ku dhamaato waxaad gaaraysaa marwa ayaad gaaraysaa marwa iyadana markaad dusheeda taagan tahay ama halka laga soo jeeraynayo sidii oo kale aad kacbada u soo jeesanaysaa وانا دعيسانيسا سيدي markii hore aad u ducaysatay markaynu soo ururino 7 jeer ayaad marna sii soconaysa marna soo soconaysa waa la kala tirinayaa go'an baaga ama sii socodkuna waa mid soo socodkuna waa mid laakiin sii socod iyo soo socod hal mid lagama tirinayo sida dadka qaar kood ay fahmaan saadaradeed waxaad 7 ka bilaabaysaa safa waxaanu ku dhamaanayaa marwa ayay ku dhamaanayaan oo tashimaalka ama dhinaca waqooyi u xigta safa iyo marwa iyada wuxuuna shardiyaa inaad ka bilowdo safa marwana ku dhamayso 7na ay yihiin aad isku xigxigsiiso oo aanad kala goynin sida fiican weeye
waxba iyada shardi uma aha inaad daahir tahay ama cawradaadu ay asturan tahay waxba shardi uma aha markaad halkaa intaa dhammayso waxa kuugu xigaya cumradii xiirashadii baa kuugu xigaya waad xiiranaysaa ama timii baad gaabinaysaa waxa kuu dhammaaday markaa cumradii halkaasay kugu dhammaanaysaa waxaynu usii soconaynaa xajka waxaa la xidhanayaa markuu qofku soo cumraysto ee cumradii uu dhammeeyo maalinka 8aad baa la xidhaa oo loo baxayaa mina sida sunnaha waxa weeye waqtiga barqada in la baxo mina la tago mina markaa waxaa lagu tukanayaa 5 salaadood maalinka 8aad duhurkii baa lagu tukanayaa iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishaa'igii iyo subaxa bishu ay 9 tahay salaada subax baa lagu tukanayaa wax kale la sameyn maayo salaadahana waa la gaabinayaa iyadoo salaad walba waqtigeeda la tukanayo oo aan la isku geynaynin salaadaha lama jamcinayo la isuma geynayo laakiin salaad walba halkeeda lagu tukanayaa afartii la gaabin jirayna waa la gaabinayaa waa laba duhurka iyo casarka iyo cishaa'iga subaxa iyo maqribka lama gaabiyo reer makana way gaabinayaan dadka kale ee meelaha kale ka yimaadaana way gaabinayaan siduu nabiguba sameeyay calayhi salaatu wasalaam dikrigaa la iska akhrisanaya waa la iswacdiyayaa cilmigaa la iska baranayaa ilaahay baa loo khushuucaya inta halkaa la joogo 5 salaadoodna waa lagu qaadanaya marka waagu uu bariyo subaxa bishu ay 9 tahay yawmu carafa la yiraahdo waxa loo kolayeysanaya ama loo dhaqaaqaya dhinaca iyo carafa waxa la sii dhaafayaan waxba laga qabanaynin marka meesha musdalifa la yiraahdo sidoo asxaabigu laha fa ajaaza nabigu halka uu dhaafay waxa la degaya carafa bariyo hore nabigu wuxuu degay calayhi salaatu wasalaam meel namira la yiraahdo oo hadda masaajid weyn ka dhisan yahay oo kacbada carafa agteeda laakiin hadda taasi suuragal ma aha dadkii qolo walba meel baa loo xiray maadaama ummadii ay badatay marka waxaad ku qasban tahay teendhooyinka adiga lagu dhisay ciidaad la socoto inaad degto oo halkaasaad galaysaa galinka hore waa la iska joogayaa salaada duhur iyo salaadii casar oo labadiiba ay gaaban yihiin laba yihiin ayaa lagu tukanayaa iyadoo salaada hore loo adaamayo loona aqiimayo duhurkii oo laba ah casarkii baa lagu xigsiinayaa oo aan adaan lahayn 2 ragcadood oo aqiimid uu laga horeysiinayo halka waxa kugu dhamaaday salaadihii duhur iyo casar oo la isku qadimay oo casarkii la soo qadimay duhurkiina la raaciyay sidaas uu sameeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam hayeeshee de imaamkii meesha hogaaminayay maadaama nabigu ha isagu khudbad buu umada u akhriyo de waa kii isu taagay khudbada dheer akhriyay iyo wacdiga dheer imikana masaajidka weena namira la yiraahdo khudbada waa laga akhriyaa marka qofkii gaari kari waaya isagu salaadihii halka mukhayamka ama teendhooyinka uu degan yahay ayuu iskaga wuquufaya wuquufka waqtigiisu ama carafa istaageed ama ku ducaysigeeda ama waqtiga cibaadada ahay waxa uu bilaabmayaa duhur kadib ama waqtiga labada salaadood la tukaday kadib uu bilaabaa waqtigeedu ma aha gelinka hore hadii gelinka hore aad istaagtaa iska timaado carafa kuma jirto carafa waqtigeedu wuxuu bilaabmaa gelinka dambe uu bilaabmaya sidoo rasuulku sameeyay sallallahu alayhi wasallam waxa xusid mudan nabigu wuxuu istaagay meeshan la yiraahdo jabal carafa ama dadka qaarkoodna ay yiraahdaan jabal rahma ee carafa bartankeeda ee dadku ku urureen dhagaxaanta waaweyn leh agteedu istaagay qibladana wuu soo qaabilay laakiin halkaas imika saxmadeeduna way badantahay kuleylkeeduna wuu badan yahay dad badanina way ku dhibaatoodaan ummad badanna ma qaadayso nabigu isagoo ummadda u digaya wuxuu lahaa waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif anigu dadiyo halkan aan istaagay laakiin carafa meel walba waa la istaagi karaa marka teendada lagu dhisay hadii aad joogto oo halka aad ilaahay ku barido oo aad ku ducaysato dhib ma jiro waxaynu ka digaynaa dadka qaarkood baa waxay yiraahdaan halka uu nabigu istaagay igaarsi dabeedna bacad baa ku dila ama cudur baa ku qabto way ku dhibaatoodaan saxmad badan bay la kulmaan halkaas uu qofku iskaga cibaadeysanaya quraanka ku akhriya ducaad badan buu ducaysanaya naftiisa ehelkiisa ummadda islaamka adduunyada aakhiro intaba ducadiisu way caam yeelaysaa qofka marka uu gabalku u dhawaado inuu dhaco ayaa la soo dhaqaaqaya waxa se waajibaadka kamida in gabalku uu kugu dhaco carafa oo qoraxdo dam tiraahdo mooyaan ha ka soo dhaqaaqi waqtiga kolka la gaadhay qoraxdu ay dam tiraahdo ayaa laga soo dhaqaaqaya carafa waxa bilaabmay habeenkii ciida bisha carafana ay ahayd 10 waxa loo soo jahaysanaya musdalifa la imanaya musdalifa habeenka hawsha laga qabanaya halkaas iyadana la degaya waxa lagu tukanaya salaadii maghrib iyo cishaay oo la isu geeyay maghribku waa 3diisii
ولو أدام يا والله أقيم يا عشاء يجيبها مركا إستجنا الله أقيم يا ولا جو حكسين يا الله بقى صلاة جمعين تودي هالكاسة كوجودا ماتي شقدا كوحكتها وحويه هالكا إلهي درادي إن لو جود بشرو هالكا الله فردي يقول لقى السنة يا وحكلتونا متشرا والله يا رسي حنايا إلهي نوال جبر يا سبحانه وتعالى سيد القرآن كإلهي وآدي نقول لي آياتها سورة البقرة هالكا سال لقول تكنيا صلاة الصبح بقى لقول تكنيا يدا وقت هرب وليبا لتكنيا سيد النبي السماء عليه الصلاة والسلام waxa uu rasuulku u fasaxay dadka da'da weyn iyo kuwa ducafada layla iyo dumarka iyo caruurta inay hore isaga sii dhaqaaqi karaan habeenka marka la gaaro bartamihiisa 12 habeenimo wixii ka dambeeya iyagoo u jahaysanaya xagga iyo buurtii la tuurayay laakiin qofkii xoog leh waxa fiican inuu ku dadaalo inuu waagu halka ugu bariyo salaada subaxna ku tukado subaxa kadib baa laga dhaqaaqaya waxa la tagayaa buurtii la tuurayay waxa xusid mudan maalinka ciid hal buurun baa la tuuraa وصدح ضبورات حق مكة وحكتاه وجمرة العقبة أيا لا يدعى مركا لبدا هروا لا دافيا تاو دبيسا لا توريا تدبا دغخ با لغو دفنيا تدبا دغخ marka lagu dhufto ee la dhameystira intaas iyadoo dhinacii walba aad ka tuuri karto dhinaca bidixdu nabigu ka tuuray laakiin hadda waa cidhiidhiya dhinacii ku suura gala ayuun baad ka tuuraysaa gidaarka weyna la dhisay ayaa tuuraysaa toddoba dhagax oo aad hubto oo kala socdo mid waliba markiisa gaarka ay yahay ayaad ku dhufanaysa marka tuuridaasi ay dhamaato qofkii aan waayeel ee aan tagi karaynin qofku wakiilanaya oo ka soo tuuraya taasina way ku filan tahay halkiisaan iska joogaya waxa markaa loo gudbayaa in timihii dumarka kale ay gaabiyaan ragina wuu gaabin karaa laakiin waxa u fiican xirista inay dhukuraan oo timahoo dhan ay wada muldhiyaan ay wada xiraan baa ragga u sunna ah sidoo nabiguba u duceeyay calayhi salaatu wasalaam dadka xiraya timaha labada arimood kolka aad isla hesho waxaad gaadhay shayga loo yaqaan at-tahallul al-awwal xalaalowgii hore marka qofku heegankiibu ka baxaya waxyaabihii ka xaraamtaha xalaal u noqonaya marka laga reebo mucaamaladii xaaska nin iyo naagtiin ay galma sameeyaan taasa meesha ka hadhan iyo ciyaartii dumarkii waxa intii kale oo dhan xalaal bay ku noqonayaan dharkiina dib baad ugu noqonaysaa waxa laga yaabaa barqada gaaban ama 8-9ka ama 7 meelaha inuu qofku xalaaloobo marka inta uu heeganka ku jiro waa maalinkii 8aad iyo 9aad iyo galinkii hore maalinkii ciida qofkii awood le marka ay kari karaya wuxuu soo dhaadhacaya kacbada kii kalena minuu iska joogaya dawaafka uu dib dhiganaya qofka doonaya maalinta inuu israaciyo amaladiisa oo dhan kolku neefkiina daacid wakiisha laga soo qalo wuxuu tagaya xaqii kacbada u jahaysanaya kacbada ayuu soo dawaafaya dawaafkii weynaaye xajka ee loo yaqaanay dawaaf rukni aw dawaaf ziyaara dawaaf al-ifaada magacyadaas uu leeyahay sidii hore inuu soo sheegnay uu qofku soo dawaafaya sacigiina uu soo raacinaya oo isagiina waa dhameystiraya saciga iyo dawaafka markuu soo raaciyo horena saddexdii hore uu soo dhameystiray timihii oo xiray neefkii oo qalay iyo isaga oo buurtii soo tuuray uu xalaaloobay xalaalow dhameystiran ayuu xalaaloobay waxa xusid mudan intaynaan dhaafin neefka la gowracaya kuma eega kaliya maalinta ciida ee maalinka 11 12 13 waqtigiisu intaaba uu taagan yahay marka hadduu maalinka ciida neefkaagu dhaafo laga qalaya ama adigu aad qalayso ha warwarin ayaamaha ka dambeeyaba waad qali kartaa xajkii markaa uu ku dhameystirmay waxa ku haray markaa inaad u hooyato mina habeenka bishu 11 tahay iyo habeenka 12 tahay labada habeen bayna halka u hooyato mina waa waajib hadii aad ka tagtana dhiig baa lagu yeelanayaa sabab la'aan waxa kale oo iyadana ku haray maalinkay bishu 11 tahay iyo maalinkay 12 tahay iyadana waxa waajiba in la tuuro buuraha waxa la tuurayaa kolka waa saddexdii buurood oo mid walba lagu dhufanayo 7 dhagax ta u shishaysa laga soo bilaabaya ee maka ka durugsan ta dhaxal lagu xigsinaya ta xagga maka soo xigta lagu tuuraya habka loo tuuraya kulay sharax gaar u baahan yahay laakiin tuurida hagaagsan sidii tii nabiga oo kala ayaa halka lagu tuuraya waxa la tuuraya maaha shaydaan sida dadka qaarkood ay aaminsan yihiin laakiin waa wax ilaahay nagu adoonsaday waa cibaada ilaahay nagu dhawaanayno dhagaxaas u baalay halka qabadsiya wax kale oo laakiin shaydaan oo lagu dilaya meeshii ma yaalo taana in la ogaadaaba aad u muhiima markaad maalinka 11 iyo 12 tuurto buurta labadii habeen halka u hooyato ikhtiyaar baad leedahay
habeenka 13 iyo maalinka 13 inaad sii joogto oo aad dhagaxiina tuurto haddaad doontana waad iska tegi kartaa labada arrimoodba way ku bannaan yihiin xajkiina wuu ku dhamaaday waxa ku haray kaliya dawaafka loo yaqaan dawaaful wadaac ama dawaafka sagootiga oo marka aad anba baxaysa tagayso xataa haddaad jidda tagtay aad ka soo laabato markaas baad dawaafkaana samaynaysaa ee aad habeenka dhoofayso saacada ka hor waa inaad sii samayso dawaafka waxa laga daayay oo laga dhaafay ruuxa dumarka ah ee dhiigga caadada ah leh waa laga dhaafay waxa aynu inta dib ugu noqon lahayn gabadha dhiigga caadada ah leh xajkii way soo xiran kartaa camaladii oo dhanna way samayn kartaa dawaafku baanay sameeyeen sidoo nabiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam markay ka warwarin gabadha dhiigga caadada ah leh aan daahirka ahayn xajka ay galaysay ka warwarin bilowga way u maydhanaysaa way u diyaar garoobaysaa wixii xaajigu sameeyo dhan bay samaynaysaa dawaafku bay dib dhiganaysaa ilaa intay daahirayso marka halka waxa ku dhameystirmay xajkii baa qofka ugu dhameystirmay waxa inta barbar yaala waxa weey hadii qofka fidye lagu leeyahay oo waxyaabo khilaaf uu galay inuu neef siyaada bixiyo oo taana culimadu sii weydiin doona marka inagoo soo ururinayna inaha aynu ku soo koobi karno habka uu u soconayo qofka xaajiga bilowga ilaa dhamaad inta weeye wixii inta si dhaafsana qofku culimadu su'aalo weydiin kara ama aynu ka degdegnay ama aynaan aad u iftiiminin aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inta xajaysan inuu xajka ka aqbalo inta kari weydayna ee aad ugu hamiyeysa u jibeysana jecelna inuu ilaahay ka aqbalo oo iyagana uu xajka geeyo saasaynu ilaahay ugu mahadnaqayna arkaanta islaamkana uu noo dhameystiro jazakumullahu khayran wa ahsana Allahu ilaykum aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh